asalaamu calaykum asxaabteyda kusoo dhawaada mar kale iyo muuqaal cusub. Muuqaalkeena maanta waxa uu ku saabsan yahay qadadii maanta. Sida aad aragtaan waxay ka kooban tahay baasta iyo shirimbis. Aan guda galno. Wuxuu janaalkeena Ashraf CJ una soo biir adiga oo subscribe saaraya si aad wax badan ugu faa'iidid. Mahadsanid. Marka hore waxaan dib ka saaranaynaa biyo. Waxaan ku darsanaynaa cusbo iyo wax yar oo saliid saytuun ah. Waxaan ku shubaynaa baastada. Waxaad isku daydaa in aad baastada ka dhigto meesakooto. Hadda waa diyaar. Waan dejinaynaa. Biyo qabow ayaan ku shubaynaa si ay baastada aad noogu bislaanin. Haddana waxaan diyaarinaynaa shirimbiska. Ila soco. Digsigan ayaan waxaan ku shubaynaa wax yar oo saliid saytuun ah iyo hal qaando oo batar ah. Waxaan ku darayo waa tuun. Xogaa waa isku walaaqaynaa. Tuunta aad ayay u caraf badan tahay. Hal basal oo si yar aan u soo jarjaray ayaan ku daray. Si fiican u walaaq si ay isku dhex galaan. Waxaadna sugtaa ilaa 2 daqiiqo. Waxaan ku daraynaa waa basbaaska shiidan hal qaando. Sidoo kale waxaan ku daraynaa paprika hal qaando ah iyo filfisha shiidan. Isku walaaq ilaa iyo carafta iyo dhan ay isdhex gasho. Waxaan ku daraynaa waa cusbo. Markay sidan u gaduudato waxaad ku daraysaa shirimbiska. Iskana hubi inaad si fiican iskaga bixiso maqaarkeeda. Sidaad aragtaan waxaan korka ugu darayaa hal qaando oo batar ah si uu u shiilmo. Waxaana loo baahan yahay inaad ku kariso dab dhexdhexaad ah. Waxayna qaadanaysaa ilaa iyo 3 ama 4 daqiiqo. Hadda waa diyaar. Waxaan ku darayaa baastadii horey aan u soo karinay. Sidaan isku dhex geli baastada iyo shirimbiska. Hadda way isdhex galeen. Waxaadna ku sii carfin kartaa kabsar caleen. Waan diyaarinay. Cunis oo kaliya ayay rabtaa. Ku daadso xawaajiyada la isku dardaray ee kuleelka leh. Aniga ayaa idin tijaabinayo. Bismillaah.